بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم سلام الله عليكم ورحمته وبركاته dhammaan asxaabta aad iyo aad baan u salaamay marka koowaad allah subxaanahu watacaala ayaa mahad iska leh ina siiya caafimaadka inooguna deeqa nimcooyinkiisa faraha badan leh insha allahu tacaala maanta waxaynu is xasuusinaynaa laba shay shayga koowaad oo ah inaynu ku jirno yowm aljumca marka waxaa laynaga baahan yahay laba shay inaynu maalintaa jumca uga faa'iidaysano inaynu salliga nabiga calayhi salaatu wasalaam aynu badino aynu ku celcelino man sallaa calayhi salaatan waaxida sala allahu calayhi biha cashara waxaa kaloo laynooga baahan yahay insha allahu tacaala yowm aljumca waxaa ku jirta saacad istijaabat dacwa adducaa waxaa ku jirta saacad la aqbalo ducada insha allahu tacaala aynu ka faa'iidaysano aynu ducaysano saacadaasina waa saacadda ugu dambeysa maalintaas adceed dhaca insha allahu tacaala aynu ducaysano allah subxaanahu watacaala waxaynu weydiisanaan allah subxaanahu watacaala uu inaga aqbalaya waxaa kaloo aynu isxasuusinaa insha allahu tacaala waxaa inagu soo food leh yowman cashuuraa maalintii cashuuraa maalintaa oo soonkeyga aada soonto oo allah subxaana watacaala uu kugu dhaafayo dembigaad soo gashay sanadkii hore marka iyadana waa maalin aada u qaali ah oo fadli fara badan leh culammadaa si fiican uga hadashay kulli aynu xasuusuunu beegata insha allahu tacaala aynu ka faa'iidaysano aynu soonno hadduu ilaahay qadaro intaas ayaynu la socodsiinay wabilaahi towfiiq asalaamu allaahi calaykum waraxmatuhu wabarakaatuh